waxaa la soo tabiyaa in doon badda gashay ay duufaana ku kaceen oo ay qarqoontay rakaabkeediina uu hal nin uun ka badbaaday. ninkiina sidii ay mawjaduhu hadba dhan ugu harraatiigeen ay qooriga jasiirad laga hayaamay ku soo horeen. dhowr araarood ayuu halkaasi midhaha ka qaraabanayay, bakaylayaasha iyo kalluunkana oo ugaarhsanayay. ilo biyo ah oo ku ag yaallay mutilo yarna mukaabii, mutilahaasna maalinkii midayda shiilaysa ayuu ka geli jiray, habeenkiina qabowga iyo dhaxanta ayaa uu ka gabaadsan jiray. maalin ayuu ninkii cunto dabka saaray oo uu damcay inta ay soo bislaanayso inuu jasiiradda soo yaraynaindheeyo. dabkiina inta uu gaadhay mutilihii ayaa uu shuf feelay. markii uu soo laabtay uu arkay mutili yaraa oo dambaska ah qayl ayuu ka wadhay, isaga oo aad u murugaysan. habeenkaas ninkii waxa u soo hoyday isagoo cadho iyo cado madhani isu soo galeen oo gaajaysan. arooryadii markii la soo gaadhay ee indhaha kala qaaday ayaa uu farxad la kala batay. kadib markii uu arkay markab isaga badbaadadiisa u yimi oo isu soo taagay jasiiradda agteeda, kulaash isaga soo qaadana soo diray. markii ay badbaadiyeen ayuu weydiiyey sida ay ku ogaadeen inuu meesha joogo. markaasay ugu warceliyeen inay arkeen qiiqa jasiiradda ka baxaya ee muujinaya wax gubanaya, sidaasna ay ku garteen in halkaasi cid joogto badbaado doonaysa. sidaasna ay ugu yimaadeen oo soo badbaadiyeen. sheekadani ayaa waxayna tusaysaa in waxyaabaad u arkayso dhibaato iyo shar ay marar badan ay yihiin faa'iido adiga xagga ilaahay kaaga timi, mar dambana aad gadaal ka ogaan doonto faa'iidadeeda. intaas ayuu ku egyahay mawduuc.